daawadayaal kusoo dhawaada Nawaaxi TV maanta halkan waxaa martiin ugu ah Cabdi Xasan oo dhinaca midigta fadhiyo iyo Sahal oo dhinaca bidix fadhiyo maanta barnaamijkana wuxuu ku saabsan yahay sportska oo ah wax muhiim ka ah qofka bini'aadamka noloshiisa lagana xiiseeyo adduunka oo dhan su'aashayda koowaad waxaa weydiinayaa Cabdi Xasan muxuu sportska muxuu faa'iido u leeyahay marka waa soo mahadsan tahay Nawaaxi TV Cabdi Yare waxaan kaloo rabaa inaan mahadnaqo saaxiibkay oo la fadhiyo Mr. Sahal hadaan isku dayo inaan ka jawaabo su'aashaada kubadda cagta ama sakarka maxaa ay faa'iido u leeyahay faa'iidooyin badan buu macaan leeyahay oo la taaban karo oo wax ku oola waxaaba xigmad carbeed ay tiraahdaa alqalbu saliim fi jasad saliim anaha xigmadaas waxaad ka dareemi kartaa inay wixii dhan ay soo koobtay macnaheedu yahay yani waxa jirka fiican wuxuu ku jira maskaxda fiican wuxuu ku jirtaa aqliga fiican wuxuu ku jira macnaha jir fiican baan oran karnaa dana Soomaali u tarjuno sakarka waxa weeye waxyaalo badan buu qabtaa waxa kamid ah wuxuu yareeyaa dadku isu keenaa dhalinyarada isu keenaa waxa kala sameeyaa dambiyada ayuu hoos u dhigaa oo dadku intay dambiye wax gali lahaayeen iyo crime waxay sameeyaa isu keenaa activity-ga sameeyaa waxa kaloo la taaban karaa xagga caafimaadka ayuu wax badan ka qabtaa oo saasan leeyahay waxa yani culimo badan waxay hadda sheegeen haddii dadku ay ku ciyaaraan ama ay jirkooda dhaqdhaqaaq sameeyaan inuu dhiig karka sonkorta waxyaalahaas oo dhan hoos u dhigo ama sanad ku soo wasaar mahadsantahay dan ka jawaabo su'aashaadii ahayd sportska dhalinyarada muxuu inta buu macnihi ugu fadhiyaa qiimo dabcan sportsku intaan sheegi lahaa walaalkii Cabdi Xasan baa sheegay oo sportsku waa arrin aad maaragtay bulshada qiimo weyn ugu fadhida maxaa yeelay hadday noqon lahayd soo dhawaanshaha ama isdhexgalka aan iraada bulshada ama caafimaadka bulshada ama macnihii hadduu qofku kubad ciyaaro oo kale especially waddankan aan joogno maadaama cimiladeeda muddo inay aad u tahay waqooyi America sportsku wuxuu ka qaadanayaa qayb leh wax meeshaas intay dhalinyarada banaanka istaagay wax badan oo hadda amudi waqooyi America inay soo badatay dhalinyaradeena dhalinyarada Soomaaliyeed ay muddo inay soo badanayaan wadooyinka wuxuu ka celin lahaa sportsku ama daah u noqon lahaa oo ka qarin lahaa waxyaabaha banaanka yaal oo aad muddo inay ku dhex qasmeen marka hadalkayga hadaan soo koobaan dib ugu soo noqdo sportsku muhiim weyn buu u fadhiyaa bulshada Soomaaliyeed hadday noqon lahayd dhanka caafimaad hadday noqon lahayd isdhexgalka soo dhawaanshaha bulshada hadday noqon lahayd aan iraade hadday noqon lahayd kaabiyad kulli importance fi weyn buu u fadhiyaa wax weyn buu u fadhiyaa halkaas ku soo koobaya maasanid su'aashii labaad loo rabo inaad weydiiyo madadaalo intee leeg ayuu sportka siin karaa dhalinyarada Soomaaliyeed si ay uga joogaan waxyaalaha xunxun wuxuu siin karaa madadaalooyin fara badan waxaa kamid ah marka ay intay sameyn lahaayeen wax xun intay dadka soo wax yeeli lahaayeen intay gangs noqon lahaayeen intay waxa soo dhan sameyn lahaayeen haday ku mashquulaan inay kubadda soo ciyaaraan wax badan ka taraya waxaad oran kartaa wuxuu ka joojin lahaa inay xabsiga galaan baan oran karaa marka faa'iidooyinka badan buu leeyahay baan oran karaa wixii kalena Cabdi waa nagu ma santa kulley Cabdi Xasan baa soo dhameeyay arintii wuxuu ka ilaalin karaa waxyaabo badan oo ay waqtigooda kulmin lahaayeen baan dhihi lahaa wuxuu tusi lahaa macnaheedu horta faris jirkooda ama sportska jirkooda maaragtay uu aad u anfici lahaa marka koowaad marka labaad iyaga oo ka mashquul lahaa macnaheedu waxyaabaha banaanka ama xabsiyada uu sheegay ninka saaxiibka Cabdi Xasan arrinta soo darsaday wax kale oo aan dhihi lahaa uu sportsku aad ugu wanaagsanaan lahaa macnaheedu waa wax arrin maaragtay rayn iyo farxad mudan oo bulshada aad isugu soo dhaweysay weey oo aan iraade madadaalo iyo xiiso leh marka intaas ku soo gabagabeynayaa su'aashayda saddexaad waxay tahay qayb intee leeg ayuu sportsku ka qaadan karaa mideynta dadka Soomaaliyeed waa mahadsantahay Cabdi waa su'aal aad fiican oo su'aal aad weyn waxaan oran karaa dadku aad isugu keeni karaa tusaale waxa kugu filan marka hadda kubad loo ciyaarayo marka team ciyaarayo oo kale magaaladeena ama samarka oo kale la ciyaarayo dad badan baa isku yimaada dad badan meel badan ka yimaada dadku isu yimaadaan way isbartaan aad bay isku farxadayaan
waxaa la dareemaa maalintaas inay tahay maalin yani madax banaanideeni oo kale baan oran karnaa maalin aada weyn macnaha dadku say isugu hamuun qabaan isu soo dhaweynayaan marka aad iyo aad bay muhiim u tahay dadka isu keenta kubadda cagtu iyo sportska noocyadiisa kaleba kolley inta cabdi sheegay hadalka isagaa soo dhameeyay waxyaabaha ugu muhiimsan soo sheegay waxa way isu imaanshaha macnaheedu bulsho ka timi kasoo taraafalgalaysan gobol ka yimi gobol kale u timi macnaheedu iyo dacayada ku jirta macnaheedu qolada tan oo qoladaas ay waabsanaysa ilaa macnaheedu maanta annaga ka ciyaar wanaagsan for example teamkana teamka u badiyay teamkayga teamka ka u sareeyay gurigayga igu imo kaaga ugu soo martiyay waxyaabahaas oo dhan baa ku jira marka intaas oo dhan waxaan leeyahay waa arrin aad loogu baahan yahay bulshooyinka Soomaaliyeed maaragtay isdhexgalkooda qayb weyn ka qaadanaysa waana waasan su-aasheedii u dambeysaan rabay inaan weydiiyo waxay tahay waxaa jirta qaasatan kubadda cagta Soomaali badan in ay dheesho ama ay interest garayso laakiin way yar tahay Soomaalida professionalka ah oo ka qayb gasha kooxaha waaweyn ee ka dhisan adduunka maxaa sababay in ay Soomaalidu ku yaraadaan meelahaas waa su'aal fiican waxaa jira hadda isbedelo badan baa dhacay oo hadda waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo hadda ka ciyaara English Premier League oo ogtahay wiil Manchester City ciyaara wiil kale oo waxaa jira Roma oo ciyaara marka hadda Juventus baan leeyahay ciyaara marka Soomaalida hadda waxaad moodaysaa inay national level-ka wadamada Europe ay ka ciyaari doonaan marka rajo fiican waan ka qabnaa hadda warar badan baa jira dhalinyaro badan ku soo biiri doonaan marka aniga kulli rajadaan personal qabo waxa weeye Soomaalidu inay dhawaan ku soo biiri karto garoomada caalamiga aan rajaynayaa waa maasantahay kulli Cabdi Xasan baa intaan sheegay walaalkii waa sheegay laakiin anigu waxaan ku darsanayaa waxa uu horeeya devastationka ama burburkii uu horeeyo oo nagu dhacay haddaan la soo qabsan lahayn kubadda aan dhex gelinay ama garoomada waaweyn aan ka muuqan lahayn waxay ahayd dawlad la'aantii nagu habsatay maadaama dawladdeedii naga burburtay waxaan na qabsaday darxumo dhinaca naga qabsaday sportska wax naga kaabiya ama haday ama dhaqaale ama ha noqoto ama wax isu soo oreeyay dhalinyarada Soomaaliyeed ha noqotay taas baa waxa moodaa dhinaceedii booska ka baxay tan labaad aan iraado kulli dhalinyarada Soomaaliyeed aad bay kubadda u xiiseeyaan khaasatan haddana Afrikaan aad baan kubadda maaragtay maadaama Afrika laga daawado kubadda cagta inta badan aan iraado 9 baan iraado kubaddii marka xiisaheeda aad baa looga jecel yahay Afrika san hadda horeba u sheegay maxaa timi inaan opportunity dhalinyarada Soomaaliyeed inay helaan oo wadankii qurbaha soo galaan ma xuma sportskoodii way wateen laakiin waxa u saamixo weeday fursad ah ma kubaddii baa professional ka dhigataan waqti intee la egbaad gelisaan mise familiyada Afrika uga timaadeen like wadankii Soomaaliya oo kale aan baad dhaqaale intaad u dirtaan baad iska daysaan wixii aad jeclaan xirfadu u ahayd taas iyada laftirkeeda u saamixoyay inay kubaddeedu horumar ka gaaraan kana soo muuqdaan garoomada suu Cabdi Xasan walaalkii sheegay way jiraan dhalinyaro ka soo dhex muuqday garoomada sida walaalkii Cabdisalaam oo u ciyaara Man City iyo walaalkii kale oo magaciisa Daawud inuu ahay waan jeclahay oo u ciyaara Juventus waana jecelnahay mustaqbalka waxaan ku rajoonayaa inay dhalinyaro badan ay ka soo dhex muuqan doonaan garoomada haddii rabbi mahadsanidin Cabdi Xasan iyo Sahal iyo anigoo ah Cabdi Yare halkaas ayuu barnaamijkeena ku eedahay sida iyo nabadgelyo mahadsan